hubaysan ayaa la wareegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Magaalada Gaalkacyo maalmihii la soo dhaafay waxay wajahaysay arrimo murugo badan oo sabab u noqday in la dilo dhakhaatiir iyadoo oo dhanka kalena dableeyo hubaysan ay khalkhal geliyeen amniga magaalada. waxaa hadda goordhow soo dhacday in ciidamo hubaysan ay la wareegeen qaybta ama xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. haddaba ciidamadan la wareegay iyo waxa ay salka ku hayaan iyo sidoo kale xaaladda guud ee magaalada oo 24 saac ee ugu dambeeyay xaalado halisa oo amni darro ay ka taagneyd ayaan soo qaadan doonaa. dhinaca kale magaalada Garowe duleedkeeda gaar ahaan deegaanka 22 waxaa lagu dilay 2 qof oo shacab ah. nin hubaysan ayaa rasaas ku furay dad shacab ah. 2 qof ayuu halkaas ku dilay. laamaha amniga oo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo waliba dadka deegaankaasi ayaa gacanta ku soo dhigay ninkii gacan ku dhiglaha ee dilay 2 qof. bal ninkaasi wax dilay iyo xogihii ugu dambeeyay dhacdadaasi argagaxa badan ee maanta halkaasi ka dhacdayna waan soo qaadan doonaa. dhinaca kale waxaan rabaa inaan iyadana dul istaago dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay waxaa aflagaado meeshii ugu xumayd gaadhay hadallada warbaahinta la isku marinahayo ee markaasi kasoo kala baxayay wasiiro ka tirsan xukuumadda maamulka Puntland iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan maamulka Waqooyi Bari iyo waliba midka dowladda federaalka Soomaaliyeed. waxaa ugu sii darnaa oo hadaleyntoodu weli ay taagan tahay wasiirada warfaafinta maamulada Puntland iyo sidoo kale Waqooyi Bari. bal waan dul istaagi doonaa iyadoo waliba dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee maamulka Waqooyi Bari lagu eedeeyay inuu u baxsaday magaalada Garowe kadib markii uu ka biyadiiday hanaankii doorashooyinka ee ka dhacay maamulka Waqooyi Bari. bal iyadana waan soo qaadan doonaa wasiir Barkhad iyo halka uu ku dambeeyay iyo fadeexadaasi loo jeedinaya maalmihii la soo dhaafay iyo waxa ka jira iyadana waa idin la wadaagi doonaa. soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saara aragtidina inay gula wadaaga qaybta commentiga. aan ku bilaabay magaalada Gaalkacyo waxaa maalmahan ba ka taagnaa arrimo argagax badan iyada oo 2 maleeshiyo beeleed ay ku dhex dagaalameen habeenimo ka hor gudaha magaalada isla markaana halkaasi lagu dilay dhakhaatiir. 2 nin oo dhakhtar ayaa lagu dhex dilay magaalada Gaalkacyo saacado isxigaama maalmo isxigay iyadoo ay bulshada argagax badani ay ku beertay. rag dhakhaatiira oo isbitaalada ka shaqeynayay oo bulshada u adeegayay oo aqoontooda ku caawinaya ku garab taagnaa ayaa gabi ahaanba nafta la dhaafiyay taasoo shock badan ku abuurtay bulshada magaalada Gaalkacyo. xaaladdu hadda way degan tahay. 2 maamul oo markaasi ka wada taliya magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland iyo qaybta Galmudug ayaa iyagoo iskaashanaya waxa ay dadaal badan ku bixiyaan sidii loo dabin lahaa colaadaasi u dhaxaysa 2 beelood ee walaalaha ee halkaasi ku dagaalamay. guul weyn baa laga gaaray walow aan la soo afjarin. xaaladda magaaladu hadda way degan tahay balse waxaa soo kordhay in ciidamo hubaysan oo taabacsan mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya kursiga duqa magaalada Gaalkacyo oo ay doorashadiisu ay socoto ama ay qabanqaabadiisu ay socotay maalmihii la soo dhaafayba ciidamo taabacsan ayaa la wareegay xarunta dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo. ciidamadan ayaa gacanta ku dhigay xaruntii dowladda hoose iyagoo gabi ahaanba meesha ka saaray ciidamadii halkaasi ku sugnaa. waana ciidamo markaasi taageersan mid ka mid ah musharaxiintii u tartamayay duqa magaalada Gaalkacyo ee qaybta waliba Puntland. arrintan ayaa sababtay kadib markii musharaxaasi loo diiday shahaadada uu doonayay inuu ku tartamo oo waliba xisbiga ka ahaa isla markaana laga reebay. dabcan dowladda ayaa wadata qof kale, qofkana ninkana waa la reebay oo joog baa layidhi kan ayay wadatay. sidaas awgeed ayuuna marka khilaaf xooggan uga dhashay. ciidamo markaasi taabacsan musharaxaasi la reebay ayaana la wareegay qaybta degmada. wax ku dhintay ma jiro, dagaal kama dhicin, ciidamadii ku sugnaana waa baneeyeen, kuwana waa qabsadeen. haddana waxaa socoto waa lagu dajinayo markaasi lagu soo afjarayo ama lagu qancinayo ciidamada markaasi taabacsan musharaxa ama musharaxa naftigiisaba. waynu eegi doonaa. waxaa socdo olole xoogan oo doorashada duqa magaalada Gaalkacyo oo weliba dhinacyo badan baa isku hardinaya oo siyaasado badan baa faraha kula jira. waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaaye. magaalada Garowe duleedkeeda waxaa maanta ka dhacay dhacdo argagax badan oo lagu dilay 2 qof oo shacab ah. waxaa la sheegay in nin hubaysan uu rasaas ku furay 2 qof uuna halkaasi ku dilay.
laba nin ayaa halkaasi lagu dilay, ninkiina waa baxsaday kadib saacado ay laamaha amniga, odayaasha dhaqanka iyo weliba dadka deegaanka kaleba ay iska kaashadeen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa gacan ku dhiglahaasi. waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo oo lasoo qabto. laamaha amniga oo ka baxay weliba magaalada Garowe ayaa gacanta ku soo dhigay, oo hadda saacado ka hor la soo sheegay inay gacanta ay ku hayaan iyagoo weliba kaashanaya dadka deegaanka. odayaasha dhaqanka ayaa qayb lixaad la ka qaatay si gacan waxa weeye loo soo qaban lahaa gacan ku dhiglahaasi. weli lama cadaynin sababta keentay in labadaasi qof uu dilo iyo waxa ay isku haysteen. waynu eegi doonaa iyadana, waan idiin soo gudbin doonaaye maalmahan hadalhaynta ugu weyn geyiga maamulada Puntland, waqooyi bari iyo weliba geyiga Soomaaliyeedba waa wasiirada warfaafinta ee maamulada Puntland iyo waqooyi bari oo hadallo caydii ugu falxumayd ama ugu badnayd baraha bulshada isku marinay. waxaan ogsoonayn in xaflad ay ka dhacday magaalada Garowe oo markaasi lagu xuseeyay xarika jarka webiga Abay ama biyo-xidheenka Abay, raalli ahaada, biyo-xidheenka weyn ee Ethiopia Abay, oo markaasi ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta. waxaa bartiisa Facebooka soo dhigay qoraal kooban wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliyeed Axmed Macalin Fiqi oo yidhi baahida iyo waxa weeye xishood-aanta maanta jirtaay. dabcan wasiiradii saxaabada la ordeeyay ayuu ka filceliyo qoraal kooban buu soo dhigay. qoraalkaas ayaa hal mar waxaa ka wada jawaabtay intaasoo qof, 3 wasiir oo Puntland baa ka wada jawaabtay saacado gudahood. waxaa sidoo kaleeto iyadana ka soo jawaabay wasiirka warfaafinta ee maamulka waqooyi bari. arrintaa markay imaatay kii waqooyi bari baa haddana loo jawaabo, wasiirka warfaafinta ee Puntland baa haddana u jawaabay. waxay gaadhay in qabaa'ilada xataa la iska saaro oo qaar loogu abtiriyo hawiye, qaarna hawiye kale loogu abtiriyo, oo daaroodnimadii iyo hartinadibada la iskala baxo. ay noocii ugu xumayd ayay labadaasi wasiir ugu dambayn ay isla gaadheen. barkhadoo ugu dambeeyey oo hadlay isagoo oo jooga magaalada Bohoodle, waa wasiirka warfaafinta waqooyi bari, ayaa yidhi nin aan matalaad lahayn oo meel uu matalo lahayn oo siyaasad cidu ku matalo lahayn oo calooshii u shaqaysta una oo waxa weeye wax ay ku biil qaata siduu wax u cayla kaliya, hadduu wacay waayana biilka laga jaranayo, ayaa waxa weeye annagana soo tataabanaya. oo ula jeedo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland. wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland isagana waxba ma uusan reebanin, wax uu soo reebtay ma jiro. waxaad moodaa marka jawaab celinta iyo aflagaadada wasiirada Soomaaliyeed inay aad u soo badanayso, taas oo mashquul ka dhigaysa wax walba oo ay bulshada u qabanayaan ama shaqadii loo idmaday in ay ka mashquulaan macquul noqonaysa. waa arrin foolxun oo aad iyo aad u foolxun in ummad Soomaali ah wasiirnimo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed wasiiro u ah inay aflagaado ay maalin walba la taagnaadaan oo ayagun ay isfiirsadaan, oo meeshii wax la qaban lahaa, curin la raadin lahaa, bulshada waxa weeye la garab istaagi lahaa, shaqo abuur la raadin lahaa, qorshe kaleeto oo bulshada anfacaya la raadin lahaa, in iyagii ay isdhowranayaan oo midba midka kale waa aflagaadaynayo, halkuu ka aflagaadayn lahaana uu raadinayo. ilaa waxa weeye qofku hal qalbi buu leeyahay. haddii adiga aan kugu talagalo inaan maanta kula dagaalamo, dee waxaan raadinaya halkaan kaa soo geli lahaa, sida aan kuu wiiqi lahaa, sida aan kula dagaalami lahaa. marka nin raadinaya ninka kale si u cayn lahaa, wuxuu maanta oo dhan ka fikirayaa cayda halkuu ka geli lahaa. hooyadii yay ahayd, aabbihii yuu ahaa, aabbihii abtigiisa xaggee ahaa, awowgii yaa raabti u ahaa, ayaydii yaa raabti u ahaa, hooyadii isirkeedii halkay ahayd, xaggee geli jireen. waxaasuu ku mashquulaya. goormaa dantii guud ee bulshada marka la qabanaya. waa arrin aad iyo aad u foolxun oo baryaha kusoo badanaysa geyigeena Soomaaliyeed. ilaahay waxaan leenahay mas-uuliyiinteenna ha tusiyo arrimaha loo idmaday iyo mas-uuliyadda saaran. midda saaran baa ka weyn midda ay kuwa kale ugu jawaabayaan. midda iyaga saaran baa ka weyn. waxaana da'yarteennu maanta hadday ku barbaarto waxa maanta socdaay sidee xaalku noqonaya, oo haddana ay role model u yihiin rag waaweyn oo 60 jir iyo 50 jir ah oo dadkii hogaaminayo, haddanana indhihii bulshada oo wasiir baan ahayn haddana uu hogaaminay. waa arrin la yaab la wey, hadduu noqdo mid federaal iyo hadduu noqdo mid maamul goboleedba. waxaan dhihi lahaa marka muuqaalkan cid walba uu soo gaaro
warbal ha laga waaniyo oo ha lala hadlo wasiiradu ha ka fogaadaan isku jawaabista wasiirka kale loo jawaabay oo ha laga wada hadlo bal wixii shaqaa oo bulshada hortaaliya nin walba mas'uuliyadda hortaala sidoo u gudan lahaa kaliya ha laga shaqeeyo taasaan dhihi lahaa aad iyo aad baad daawadayaal u mahadsantihiin idinkana si walba oo mar walbaba waxa weeye dhiirigelinta mar walba aad noo samaysaan iyo sida aad ugu xidhantihiin iyo dulqaadka iyo weliba aragtidiina aad mar walba noo soo waxa weeye kasoo dhiibataan qaybta commentiga aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin